adiga kula hadlaya kulay dabcan nin rag uun baa sameeyay waxaas kulay gabar intay muuqaal ka soo duubtay gabar kale ma soo dhigayso baraha bulshada kulay waxay ila tahay jaani si fara badan ku raadiyay gabadhaas uu caabaysto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saaxiibada qaaliga dhamaantiin waan idin salaamay meel walba oo aad dunida ka joogtaan. janaalka aad naga daawanaysaan sida horeba aad nooga barateen waa Saadaq Simba. magaciigu waa Saadaq. waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo arrin xasaasi ah, arrintaasi oo aan ahayn arrimihii iska caadiga ahaa oo normalka ahaa oo laga aamusi karay. arrinkan ma ahan arrin laga aamusi karo dabcan. sida wejigayga aad ka dheehan kartaan wejigayga waxaa ka muuqda xanaaq. dabcan xanaaqaasna wax kale ma ahan. waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin isla waqtigan haddeertaan videoga aad duwaya ka socda social mediaha. arrinkaas waxaan rabaa inaan marka hore wax yar ka dhaho, talabaadna inta aan arrinka u guda gelin oo aan faahfaahin waxaan rabaa in aan dhaho qof waliba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dhaho ha isku day in aad sameyso tan oo kale. maxaa yeelay waa sharaf dhac aad iyo aad u weyn, raganimana ma ahan taas. waxaan rabaa inaan ka hadlo gabar Soomaaliyeed aniga ila dhalatay adiga kula dhalatay oo ah gabar walaasheen ah oo la ceebaystay. waxaan rabaa inaan dhaho ugu horeyn ninka waxaa sameeyay adigu ma tihid nin rag ah, balse magaca kaliya ayaa ka tahay nin rag ah. maxaa yeelay ninka ragga ah ma ahan kan gabdhaha sharaftooda dhulka geeyay waa kan gabdhaha intuu gacanta qabto sharaftooda gabdhaha kor u qaada. adigu ma taqaanaa hore gabdhaha xuquuqda ay leeyihiin ma garanaysaa? ma taqaanaa gabdhaha wanaagga ay dhexdeena ku leeyihiin ma taqaanaa? marka aad gabar Soomaaliyeed aad waxaad ku sameynaysid kulley waa nin rag ah oo yacni magaca oo nin rag ka ah. kan hadda waxaa sameeyey wax qaldan oo aad iyo aad u qaldan oo sameeyey. arrinta gabadha aan ka hadlayno waa Cayuuni oo la fadeexaystay oo muuqaal oo yacni laga soo duubay. muuqaalkaas dabcan aniga si fiican ma sii dhammaystiran, madaxa ay xanuunay. arrinkaasna si fiican ma uga sii hadlin, laakiin waa dabcan waa arrin aad iyo aad u qaldan, mana wanaagsan waxaas oo kale in la sameeyo. sharafta gabadhaas haddeertaan ma malaysan kartaa caawa sidee xaaladeeda ku sugan tahay gabadhaas oo adiga muuqaalka intaa kasoo duubto waxaas ugu samaysay. adiga kula hadlaya kulay dabcan nin rag uun baa sameeyay waxaas kulay gabar intay muuqaal ka soo duubtay gabar kale ma soo dhigayso baraha bulshada. kulay waxay ila tahay jaani si fara badan ku raadiyay gabadhaas uu caabaysto. laakiin waxaa ku leeyahay qalad aad iyo aad u weyn samaysay gabadhaas oo waxaas ku samaysay. aniga maanta walaashay ma ahan, laakiin waa walaashayga oo kale ana ila dhalatay. nin walba oo Soomaaliyeed oo dhig leh oo damiir leh ila dhalatay. teeda kale waxaan rabaa inaan dhaho dadka baraha bulshada muuqaaladeeda soo qaadanaya please and please hala joojiyo waxaas. muuqaalka gabadhaasna hala tirtiro. maxaa yeelay waa qof oo Soomaaliyeed haddana waa gabar. gabdhaha xuquuq aad iyo aad u weyn leeyihiin, ma fahanteen? nabiga Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hala ilaaliyo gabdhaha, dumarka hala ilaaliyo. dunida waxaa laga jeclaysiiyay dhahay waxyaabaha udgoon iyo dumarka nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. adigana waxaad isku dayday maanta inaad gabar walaashaadu kala ah sharafteeda ku dheesho. please and please hala joojiyo. sababta ugu qasabtay inaan muuqaalkan soo duubo waxay tahay in aan ku dhaho dadka social media views raadiska ah fadlan views wax uu ku tarayo mala. waxaan waa laba maalin dunidan waa laga tagayaa. gabadhaas muuqaaladeeda ayaan la soo qaadanin. dabcan afka dabcan waa ku dhaleeceyn kartaan, waa uga hadli kartaan, laakiin please muuqaaladeeda ayaan la soo qaadanin. gabadhaas waa gabar dabcan baraha bulshada magac ku dhex lahayd. way dhici kartaa qofka dabcan hadda qaladka meesha ku yimaado aniga ma sheegi karo. laga yaabaa xataa in la sameeyey la edit gareeyay oo wejigeeda weji kale la dul saara dhici karto. ma qiyaasi kartid, waa iska soo qaadanaysaa. hadda waxaa ujeeda King CK oo la dhahayo waa sidan muuqaalkeedu ayadana soo qaatay gabadha sidaan ku sameeyay caadi u tafatirayaa. wuxuuna iska dhigayaa qof oo ku raadinaya magaca. youtuberada waxaa idin sheegaya hal mid, haddii aad rabto in arrinka dhaleecaysaan isku daya kaliya in aad arrinka oo aad afka uga hadashaan. please gabadha muuqaalkeeda la soo qaadanin. maxaa yeelay gabar way kula dhalatay adiga muuna u rabtid in gabadhaas la caabaysto, ma jeclid. asxaabay please codsi iga tahay wallahi ma u dul qaadan karo mana adkeysan karo gabar Soomaaliyeed oo wax lagu sameeyo. shit caawa kaas hadda arki lahaa aniga waa dili lahaa, dhiig xataa waa geysan lahaa. maxaa yeelay gabadhaas fiiri meeqa gabdhood ay yacni ka daba dayan kara maanta oo waxyaabaha ay maanta yacni oo social media laga soo gelin karo oo yacni beenta ah ku dhaqaaqi karo. saqajaan dhalataa ku dhahay ninka waxaa sameeyey macasa tahay. maxaa yeelay gabar way kula dhalatay, xaaskaagay noqonaysaa, waad dhalaysaa, hooyadaada waa hooyo macaan waaye. waxaa saas ku sameynaysid hooyo beritool noqonaysaa. hooyadaada ma ka nixaysid miya adiga?
aada ugu xumaado dabcan wax aada loogu xumaado waaye asxaabteyda dabcan haddii aan si kul u hadlay waan xanaaqsanahay arrinkaasaan ka xanaaqsanahay asxaabay marka halii dulqaato teeda kale leh muuqaalkan inta aan muuqaalka xiga dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo fadlan gabdhaha sharaftooda hala ilaaliyo